بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ود سلامي ولا لها الشرف تله ويلي يقب دبا يكون حرين شنال كينا السمكو كنا كلتشر واحد اللي انت هبين وتهبون أكسن انت مالين وتمالون أكسن كور كستينو تيجوب كستينو شوقنا بقى الله سبحانه وتعالى خير يا بركة هاي نسيو ولا ليالو لما انت ومهد سنتين انت نهرو شوقتي يا انت نعسبة إنه قصوبير تيبا شنال كينا نفسدا وتقا هرو ويدين أما إن شاء الله تعالى انت نعسبي وقان دونتان wuxuu inta badan ka hadlayaa waxweeyaan waa Soomaali culture Soomaali mahmaaho sheekooyin iyo laga yaabo mararka qaarkood inaan cuntooyin kala soo galino oo caalamka aynu la wadaagno ama dad kale iska leeyihiin laakiin aynu ka faa'iideysanayno ummadana waxa la yiri inta khayr kala laga qaataa inteeda shar kalena waa la iskaga tagaa waayo khayrku wax ku kordhiyaa sharkuna wax ku yeelaa inta markaynu ka soo gudubno maanta waxaynu ka hadlaynaa marka u horeysa mahmaaho Soomaaliya Soomaalidu laakiinse lahjad ahaan ay ku kala yara duwan yihiin laakiin macna ahaan ay iskaga mid yihiin xaraf ahaan waxa laga yaabaa inay kala xaraf ka bilaabmaan waxyaabaha yacni lagu tusaale ahaan loogu soo qaatay inay kala yara duwanaadaan laakiin macnaha waa isku mid marka haddaad aragto mahmaahdiyo qofkanu si kale u leeyahay ha oran mahmaahda waad khaldaysaa mahmaahdu waa sidaa laakiin waxaad ogaataa mahmaahda macnaheedana qaado haddaynu eegno imka mahmaahda koobaad dadka qaar waxay ka bilaabmaan kelmad xarafka waxaana yidhaahdaan abuur iyo waxay yidhahdaan waano abuur baa horeeyay abuur iyo waano abuur baa horeeyay halkay dadka qaarna xarafka wa ka bilaabaan ay yidhahdaan waano dhalan baa ka adag waa isku mid haddaan ku dhaho abuur iyo waano abuur baa horeeyay iyo haddaan ku dhahdo waano dhalan baa ka adag labaduba isku mid marka waa inaad san tidhaahdaa fahantaa qofka yacni marka loo taakali waayo ee la arko qofka inuu macangag yahay aan xaggana u socon baa la yidhahdaa waano dhalan baa ka adag ama abuur iyo waano abuur baa horeeyay marka waa inaad fahantaa inay just luqadda aksankaa yarun in lagu kala duwan yahay laakiin ay mahmaahdu isku mid tahay mahmaahda labaad ee maanta soo qaadanayna waxa weeyaan waxay yiraahdaan dadka qaar abeesada tasanqadha iyo aamusan tasanqadha la qaatay halkay dadka kale yiraahdaan dadka qaarna yiraahdaan waraabaha kaciya iyo ka aamusan kaciya la qaatay macnaheedu maxay tahay cadawga aad iska arkaysa ee halka ka qaylinaya ee sanqadhaya ama qofka qaylinaya ee sharaarda leh ee waxan ku dhisan wala dareemaya laakiin waxa jira qof nabana ah oo dadka hoosta ka cuna oo aan la dareemin ka inta badan dadka waxyeelaanada ka weeyaan mahmaaha maanta hadaynu halka kaga gudubno waxa imanaya hal xidhaale inta badan idinka soo furaaya idinka soo qoraaya idinka soo akhriyaya idinka ka fikiraya waayo inta badan mistake markaynu waxyaabaha qorayno aynu qoraalka sameynayno halkan uu khaladku naga yimaada waa xarfaha laba laabma dadkeenu imika markay wax qorayaan inta badan ama dhalinyarada ha noqoto ama dadkiyo yacni technology-giyo markaynu wax ku qoranayno luqadeeni aan ku asalsanayno khaldaya ha noqoto inta badan xarfaha laba laabma haddaan loo fiirsan mushkilad baa inaga timaada hadhowna macnihii wuxuu keenaya yacni in lagu wareero xarfaha laba laabma marka waa inaad soo heshaa adigu naftaada isweydii xarfaha Soomaaliga laba laabma maxay yihiin kelmad baana la isku dhaha kelmadana waa inaad soo heshaa waxaan haddaba kuu sii sheegayaa hal magac oo Soomaalidu marna la baxdo oo ilmaha loo bixiyo waliba wiilasha loo bixiyo oo wiilashaas calaamad ay ku dhashaan loogu bixiyo marna loo bixiyo qofku shaqo uu ka shaqeeyo loogu bixiyo maxamed maaha jaamac maaha xasan maaha maryan maaha zahra maaha midna maaha magacaas weydii muxuu noqon karaa haddaba degdegana anaa kuu sheegaya magacaas waxa weeyaan magaca la yiraahdo barre magaca barre la yiraahdaa wuxuu soo galaa xarfaha laba laabma waa ba iyo a iyo ra iyo ra iyo magaca barre haddaad hal ra ka saarto labada ra'aad ee ku jira wuxuu noqonayaa bare marka bare maxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa macallin mar waa barre oo wiilasha loo bixiyo calaamadu inanku ku dhasho ayaa loogu magac bixiyaa waxa laga yaabaa ilmo barre iyo inaad magaca maqasho in badan marna ra'da haddaad ka saarto
bare ayay noqonaysaa qofku shaqo uu qabanayo oo shaqadiisa macalinimada ama tiijarnimada, tiijar ama macalin soomaalina waa bare. marka had iyo jeer ha laga yacni taxadiro markaad qorayso kelmadan ma xarfaha laba xarafkan gelaya ma xarfaha laban laabma mise waa xarfaha keligiiya. waanay badan yihiin. qof walba maanta waxaad samaysaa inaad isku daydo inaad hal kelmad oo xaraf laban laabma ku jira aad soo qorto. xarfaha laban laabmaana halka kelmaday isugu yimaadaanna aad soo qorto haddii lahaydmo. maskaxdaada ka shaqaysi, luuqadaada baro. haddaad taqaanana maasha allah u fiirfiirsa markaad qorayso. waayo inagu muhiimadda waxaad moodaa imka inaynu saaro qofku hadduu English kelmad English khaldo waaw madaxaynu wada qabsanaynaa. laakiin hadduu kelmad Soomaaliya khaldo saa uma sii eegno. halkay ceeb kugu tahay inaad waxaan ku luuqadaada hooyo khalado ood first language-kaaga intaad khalado aad isku daydo inaad second language saxdo. taasta ceebtaa weeyaan. waayo waxaad leedahay ayaa wanaagsan inaad saxdo. soomaaliduna waxay tahdaa halkaa mahmaahbaa soo gelayso tiisaba daryeelaa tu kala ku dara. markaad waxaad adigu tahay iyo waxaad haysato iyo waxaad leedahay aad saxdo eed hagaajiso ayaad waxa kale u gudbi kartaa. maanta haddaba insha allah mahmaahaheeni iyo halxidhaalaheeni iyo murtadeeni intaasay inoogu eegyihiin. intaynu dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa haddaad cusub tahay subscribe-ta waxaan kuuli inoogu dhacsii maasha allah. share iyo like iyo comment-na sii raaci. haddaad hore u joogtayna comment-ka iyo share-ta iyo waxaa idinku like tahay naga ilaawina. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.